asalaamu calaykum aniga aan joogsan ku soo dhawaad maskax maalin muuqaalka waxaan ku eegi doonaa packet stream wuxuu yahay yaa ka shaqaysan kara se uga shaqaysan kartaa dhab ma yahay full review aan ka bixin doonaa hababka lacagta loogala baxo guud ahaan dhiib la review aan ka bixin doonaa haddaa ku cusubta channelka fadlan subscribe adag ku fani badhanka casi xagga siyaala gambalaalkana furanaysa aad ogaatay mar walba oo maskax maalin muuqaal soo geliyo sidoo kale la hilmaamay muuqaalkan like tirada ugu fanay sulka xagga siyaala kor u jeeda suu muuqaalkan asxaab badan si gaar looga faa'iideysto sidoo kale dad badan baa jira oo su'aalo iga soo weydiinaya bariidiya ama application ka ha noqdo ama website ka ha noqdo labada application kala duwan ee messengerka iyo appka guudba ha noqdo marka baridii wuxuu leeyahay channel u gaara su'aal hadda qabtay channelkiisa subscribe dhaado ku dhufanay badhanka cas gambalaalkana furanayo oo ku dhufanay hadda aleedmo kadibna muuqaalo gaar halka ka soo gelin doona hadda aleedmo oo aan kaaga jawaabi doono su'aalaha baridii ka qabtay dad badanna way jiraan futureska iyo baridiisa u shaqeeyo aan waxba ka ogeyn kadibna aan ka faa'iideysanayn hadda aleedmo muuqaaladan kala duwan hore ugu jiro daawan kartaa kuwa cusub waan soo gelinaya kuwa waad soo codsan kartaa halkaas baridii la soo xiriiraysa hadda aleedmo wixii muuqaal ku saabsan channelka gaarka u leeyahay marka hore eegno backstream wuxuu yahay website-kaad ka booqan karta qaybta hoose description-ka ku dhigi doona backstream.io ama linkiga description-ka yaala ku dhufa xaggaas ka soo booqan karta backstream saa ujeedid baa wuxuu ku ogolaanaya internetkaaga inaad ka iibin kartid qaybtaadan u baahnayn saanoo kale internet baa aniga xiran badanka waxa laga yaabaa 80% inaan isticmaalin oo 20% ka isticmaalo marka 80% ka soo hadhay buu sii iibinayaa kana iibinayaa proxy ahaan u iibinayaa ama u iibinayaa VPN ahaan dadka kale ka sii iibinaya kadibna wuxuu siinaya lacag hoosteenu socno laba option baa jira saalkan aragtidba inaan anigu internetkayga iibiyo oo lacag helo money iyo inaad buy bandwidth tiraahdid oo proxy ka iibiyo ama VPN marba u taqaani IP address residential ku siiya oo unique ah backstream wuxuu la mid yahay system hore review ga bixiyay ama platform la dhaho Honeygain haddii aan garanay Honeygain iyo sida u shaqeyso way si soo dhow xasaas kuma kala duwan qaybta hoose description-ka dhig doona haddii aan xaga ka daawo backstream yaa ku soo beeri kara iyo iska diiwaan gelin kara iyo ka shaqeysan kara backstream waa worldwide adduunka dhan bay u available tahay marka hore waxaad u baahan system gudihiisa inaad gasho iska diiwaan gelisid oo aynu aragno si looga shaqeysan karo iyo gudaha u geli karno dashboard waxaad u baahan inaad ku dhuftid sign up ku qoran tahay sida koonuga samaysatid kadibna halkan hoos u bax formkan aad ku soo baxaya saa u jeedi formkan aad buuxinaysaa halkan username baad dooranaysaa ama naanays email baad dooranaysaa password marka la dooranaysaa inta formka marka buuxiso waxa ku dhufanaysaa halkan boxkan yarka ah si aad kabjaha u dhameystirtid marka dhameystirtid waxa ku dhufanaysaa submit marka akoonka samaystay automatically si ku geenaya ama halkan ku dhufanaysaa log in sa akoonka u gasho anu maadaama akoon hore uga lahaa waa gelinaya akoonkayga username-kiisa ama emailkii iyo password-kiisa aan u galo halkana waan dhaafaya verification-ka oo ku saaraya kabjihii weeye oo ku dhufata sawirada isla oo kale kadibna submit ku dhufasaa gudaha u gashid waayahay wuxuuna keenay dashboard-keennii oo aynu ka shaqaysan karno oo maadaama aynu soo doorno internet-keena iibino lacagna ka helno marka xogta dhahankan kugu soo bandhigi doonaa mar walba oo aad xog soo gudbisid maadaama aynan weli wax la soo degin marka appka la soo degnay ee isku xidhno ee xogteena internet-keena iibino markaas lacagtuna bilaabmaysa markaas halkan wax ka soo muuqan doonaan ama data ka soo muuqan doontaan halkan oo kale dashboard-ka hadda joogna accounts-ka oo kale hadda rabtiin accountiga wax ka bedeshid su'aal kale password-ka ama email-ka iska bedeshid waxaas dhahan aad ka bedeli kartaa sidoo kale halkan waxaa muhiim haddaan hoos u socdo halkan waxaad gelinaysaa withdrawka meesha ku qoran tahay cash out your balance-igana ku hooseyso halkan waxaad gelinaysaa PayPal email-ka aad gelinaysaa lacagta aad kula bixi rabtid sidoo kale halkan waxaa muhiim ah sida aragtid mar walba lacagta la baxaysid wuxuu ku charge garanayaa 3% oo lacagtaada ka mid ah $10 hadda la baxas 3% ku charge garanaya oo percentage ka goosanaya waaya halkan ku hooseyso kale waxa yaala referralski waa hab wanaagsan oo backstream kugu abaal marinay mar walba asxaabta la sii wadaagtid systemka waad ku sii casuuntid shaqada adag aad qabanayso kugu abaal marinaya 20% ka helaan iyagu lacagtooda way helayaan laakiin 20% waxa ku siinaya backstream bay kaaga imaanaysaa marka saaxiibkan waxba ka go'imayaan adiguna 20% baad helaysaa saaxiibkaaguna wuxuu helay buu helaya marka URL-kan aad koobi gareynaysaa asxaabta la wadaagaysaa ama social media kala duwan baad ku dhufanaysaa kadibna kala sii wadaagaysaa sidaad u heshid 20% waxay helaan oo backstream ugu heshid iyaguna faa'iidada u helaan marka waa win-win situation waa hab wanaagsan halkan ka hooseyso kale waa meeshan u socda download hadda ku dhufatid halkan waa meesha app kala soo degi lahayd saad u iibisid internetkaaga tusaale oo kale halkan waxa yaala oo ku soo baxaya download backstream for Windows 64-bit maadaama Windows anigu isticmaalayo 64-bit awliba wuxuu soo saaraya halkan ugu horeyso oo kale marba systemka isticmaalisay laakiin Windows kaliya kuma koobnid haddii isticmaas Linux ama Mac xaggan hoose ku qoran tahay looking for Mac or Linux app ama su'aashu saaran tahay falaadho hore ujeed oo kalena ku xigto ku dhufo kadibna halkan ka soo baxaya Mac ugu shuban lahayd app kula soo degi lahayd halkan ka hooseyso kale waa Windows-ka waa aragnay waa kan la soo degina halkan ka sii hooseysana wuxuu ku siinayaa command line-iska aad u baahan tahay saad ula soo degtid Linux oo waliba wuxuu u baahan yahay Docker ma rabaa dirna ka hadalno oo waa mowduuc gaar noqonaya qofkii Linux ka garanaya oo baa garanaya anigu marka waxaan dooranaya
yahay Backstream for Windows 64 bitka horaan la soo degay waa ku duubaya muuqaalka inta kale aan guda gali doonaa iyo habka internetkan saad u iibin lahayd lacagtan u heli lahayd markaad la soo degtid Backstream Windows oo kale saan u ekaan doontaa oo waa kan Backstream right click baa oranaya kadibna waxaa oranaya run as admin waxaan kula talaa markaa ku duubaysa inaad iska xidhid antivirus-ta oo xagga hoose u jeedid baa iga soo boodboodaysaa markaad iska xidhid waxay ku xidhantahay marba antivirus kugu jirta ma Casper baa kugu jirta mise Windows Defender baa kugu jira marka Windows Defender kan uu isticmaalaysaa iska xidhlaaba eegina Windows Security waa kan kadibna waxaan ku dhufanayaa Virus and Threat Protection hoos baan u soconaa waxaan ku dhufanay Manage Settings kadibna halkan on ku qoran Real Time Protection kaas ka xidhaya kadibna iska sii xidhaya hada aleedmo hadda antivirus-ta waan xidhay kadibna halkan Backstream credentialka ee gelinaya username-ka password-kan account ku samaystay san xogta u gudbin karo account-ka u gali karo kadibna kabjahan sax saarsan soo aragnayba oo buuxi kadibna submit baa ku dhufanaysaa u gali karo waa kan soo dhaweynay waxa ku dhufanay let's go marka saarti Backstream uu shaqeynayaa oo waxaan iibiyay traffic baan iibiyay oo 10.60 KB saas u soconaya mar walba traffic-ka aad iibinaysid oo mar walba oo aad refresh garaysid ama aad ku soo laabatay appka waxaad arki doontaa traffic aad iibso kor u sii kacayo habkaasna habka computer-ka ugu shuban kar lahayd appka Backstream ama ha noqdo Linux Mac ama Windows ha noqdo marka sidaan hore u soo aragnay Backstream laba hab weeye waa mid aad lacag ka sameynaysid iyo mid aad u iibsanaysid haddaad iibsanaysid 1 GB waxa laga siinayaa $1 haddaad internetka iibinaysid oo rabteen lacag shaqaysid 1 GB ba 0.10 baad ka shaqeynaysaa 1 GB ba marka waa hab aad u wanaagsan laakiin yaa ka shaqeysan kara haddii internetkaagu limited yahay tusahaan oo kale aad data isticmaalaysid oo internetkaagu aad u kooban yahay oo aad tahay qof maalintiiba content ama $1 ama $2 oo kale ku shubta oo internetkiisu aad limited u yahay kulama taliyeen inaad isticmaashid Backstream sababtoo ah internetkaagu waa limited oo lacagtaad bixinaysid baa ka badan lacagtaad ka helaysid laakiin xaafadaadii wifi kugu xiran yahay ama saaxiibka wifi u xiran yahay garan saaxiib wifi leh kula tale hadda alleedmo adiguna waa isticmaal kartay wifi ku xiran yahay oo lacag badan baad ka shaqeynaysaa waana unlimited internetkaagu haduu limited yahay laakiin kama shaqeysan kartid oo mar walba aad lacag bixisid oo 1 GB oo kale hadaad ku bixisid 0.5 oo kale laga yaabo wax ka yar oo kale kaas oo kale saa u jeedo kale 0.1 cent oo kale marka haddii aad wifi haysto waa ka shaqeysan kartaa hadda laakiin data isticmaalsid wax faa'iido kuma laha ku oran lahaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan eego markii hore saan ka soo hadalnay lacagta waxa kula bixi kartaa adoo isticmaalaya PayPal waxaadna ka tagaysaa settingska xaggan hoose withdraw ku qorantaad gelinaysaa PayPal emailkaasaan soo sheegnayba withdraw baad ku dhufanaysaa 3% lagu charge gareynayaa lacagta la baxsid marka lacagta ugu yar waa intee lacagta ugu yar la bixi kartid waa $5 oo waqti badan ma kaama qaadanaysa inaad gaadhid marka muuqaalkaas ku soo afmeeray ka hadlay Backstream sa internetkaagu iibin kar lahayd lacag nooga sameyn kar lahayd simple adoo isticmaalaya Backstream dadku cusub channel fadlan subscribe dhada ku fana barankaasi xaq u siyaala gambalkan furanaysa ogaatay mar walba maskaxda muuqaal cusub soo geliyo soo kala helmaan muuqaalka leegtarada ku fanay sulka xaq u siyaal kor u jeeda soo asxaab badan u sii gaar looga faa'iideysan karo muuqaalka inta muuqaalka xog kulmi doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh